mararka qaar qofku wuxuu ku sii fogaadaa dembiga ilaa uu is yiraahdo aniga ma lii cafin karaa. qaybtan waa qisada nin dembi badanaa laakiin qalbigiisa uu hal mar alle u noqday. waxaa jiray nin dadku waxay u arkayeen mid caadi ah, laakiin qalbigiisa waxaa ku dhex noolaa dembi joogto ah. wuxuu ku jiray salaad la'aan, dulmi, xadgudub iyo dembiye qarsoon. sanado badan ayuu ku jiray xaaladaas, laakiin habeen Ramadaan ah markuu maqlay aayadda ha ka quusanina naxariista Alle ee suuratu Az-Zumar, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alghafuuru raxiim. waxaa gariiray qalbigiisa, wuxuu galay sujuud. markii ugu horeysay ma uusan dalbanin adduun. wuxuu yidhi, ilaahayow waxaan ku daalay dembigayga, haddii aad i cafin weydo ma jirto cid kale oo i cafinayso. ilmo ayaa ka qubatay. toobadoo dhabtaa waxay ka bilaabataa marka qalbiga uu jibiyo kibirka. shuruudaha toobadu waxay tahay ka tegidda dembiga, ka qoomamaynta wixii dhacay, inaad go'aan ku gaarto inaadan dib ugu laabanin dembigii. isbeddelkii noloshii ninku wuxuu bilaabay salaad joogto ah, wuxuu ka fogaaday saaxiibadii xumaa, wuxuu bilaabay sadaqo qarsoon, sidoo kale wuxuu dadka ka raaligeliyey dulmigii. sanado kadib dadku waxay u yaqaaniin nin wanaagsan, laakiin Alle ayaa ogaa in qalbigiisa isbedelay habeenkii Ramadaanka. casharka ugu weyn aan ka baranayno qisadan waxay tahay qofka ugu dembiga badan wuxuu noqon karaa kan ugu dhow Alle agtiisa. naxariista Alle ma lahan xad, dembiyadaadu ma ka weynaan karaa naxariistiisa? su-aashu ma diyaar baa in qalbigaadu uu isbedelo caaba? ugu dambeyntii, Ramadaanku waa bil toobad, waa bil ilmo, qalbiga oo la jibiyo iyo nolosha oo dib loo bilaabo. ha sugin biri, bilow maanta. haddii fariintan ku taabatay, like saar, la wadaag qof rajadiisu lumiyey, kuna soo biir Sabriya Media si aad ula socoto taxanaha Ramadaanka.